الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وهرين شر قدوك أيام وضنايا شكلها قلت أي صحافة شغالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنتوا عن قال لنا شندين نقول بيها يا عاصمات كان سكوت بيها دين كوه إنه بيوه وحلو بهنا هاي تبي ولا بنو عبية رباط كان يبي هوست كشري marka waxaan u baahanahay in ku faa'iideysano biyaha roobka ee faraha badan ee badda galaya oo dhaamamkii hore u jiray in la hagaajiyo kuwa dambe cusubna la sameeyo si looga faa'iideysto xilliga jiilaalka biyo yaraantu timaado halkaa waxaan soo jeedinahay in dhaamamkii hore la sameeyo kuwa dambe la hagaajiyo waxa kale oo soo jeedin lahayn dhaamamka la sameeyo waxa jiray dad badan oo ku dhintay oo ma laha siliig lagu xidho inta badan waxay kaga tagaan isagoo bannaan ciyaalkiina way gelayaan bahalladina waa bad marka waxaan u baahanahay in loo sameeyo dee meel wax lagaga oodo dhalinyarta ama loo sameeyo cid hor joogto dee ka joojisa dadkoo ciddii ka cabisa mooyaane ama ku intifacsanaysa mooyaane ciddii kale ka joojisa si aan dadkeennu iyo dhalinyarteennu ugu waxyeeloobin taa waa soo jeedin lahayn sahaaminta biyaha dhulka hoose wasaaradda waxaan o lahayn dee bal idinkaa wixii saaran wasaaradda biyaha dhulka hoostiisa biyaha ku jira waa inaad sahaamin badan samaysaan si loo helo biyo badan oo aynu ka faa'iidaysano waayo waa arkaysaan caalamkii maanta taa biyaha intaasa kaga baxay ta caafimaadka waxaad moodaa inay xumadii soo noqoto ku jirta dalka aad baa looga caawinaya dhowaanaha dad badan baa cisbitaallada u yaalla dad badan iyo galafatay waa jiraan markaa wasaaradda caafimaadka iyo dee wixii ay ka qaban karta bal iyo wacyigelintiiba biyana waa jiraa fara badanoo kanaacadina way dhalato bahalkani cog waaweynoo moodooyna dirays xidhan tahay oqoniyo kulul baa soo baxdeen bal dad kale waxaa leedahay meelaha qoyaanka badan le iska buufiya qallajiyana waxaa jirtaa qolada dawooyinka keenta dalkeena dhakhaatiir waa joogtaa waxna waa yaqaanaan cudurkana waa kuu sheegayaan laakiin dawo ma jirto run markaynu isu sheego dawadu waa baacmushta waxay noqotay wax xanuun baabi'iyoon qofka xanuunkii ka kaxaynayn nimankaa dawooyinka keena waxaan leenahay wallaahi in inta ka yaabtaan kuwii raashinkan ula yaabanayna caafimaadkii dadka idinkaa ka mas-uulo dawooyinkii u keenaya war xabadda keenina $100 ka siiyo mid wax u tarta dadka u keena oo qofka xanuunkii ka biisa laakiin waxaanad u keenaysaa inaad shacabka u buuxinaysaan 10 bacood ee la qabadaa war ka daayo ilmaadi rayaal ilaahay in inta ka yaabtaan ka daayo oo wax tayada dalka u keena wasaaraddana waxaa leenahay dawooyinka iyo qoladii tayada war bal daba qolo dadkan waxaanay keenayaan inaga hubiya oo haddaanay standardkii caalamiga ahayn inaga celiya goolan dee ku dhaqmi doonaba garan mayno waxaan maanay baac mushtarkii waa ka awood badan dowladnimadeeda qolada cilaajada waxaa jira cilaajyo badanoo dalka ka furan siina badanaya maran wasaaradda caafimaadka weydiinay wasiirka iyagaasi inuu waxaan shaqaba ku balhelinay samada waxa bixiya wasaaradda diinta iyo awqaafta dee cilaajadii haddii wasaaraddii diinta iyo awqaafta bixiso dabagelkeediina wayna dabagashay ahaydeen waxaana ka shaqaynayaan nimankan waa caafimaad dadkan loo geenaya waa dad buka oo caafimaad u baahan oo in la seexiyo u baahan oo la siiyo u baahan waaba halka ha la iswaafajiyo dee laysamada ama wasaaradda ha lagu soo wareejiyo caafimaadka oo ha dabagashay iyadu ama shaqadii toosa loogu wareejiyo wasaaradda diinta iyo awqaafta oo wasaaradda diinta iyo awqaaftu ha dabagashay cilaajadeen iyo waxaa ka shaqaynayaan oo iyo caafimaadka dadkan waayo mar haddii liisanka iyadu siinayso dee waa in iyadu la wada wareegto dadkii haddii kale wasaaraddii caafimaadka liisankii ha lagu wareejiyo oo hal hoos keeno taasa ku soo jeedinna waxaan soo jeedinaa oo kale cisbitaalka weyn dalku waynu u baahannahay cisbitaallo waaweyn magaalo kasta waxaad moodaa cisbitaallada dowladdu inay cidhiidhi noqdeen marka oo dadkii danyartahaa ku badan yihiin 6 gobol ee dalkuba waxay u baahan yihiin intii hore u jirtay in lagin lagu daro cisbitaalladii hore ugu yaallay 6 gobol ee waaweyn in lagin lagu daro baan waayo ma qaadayaan maanta dadkii u imanaya ee danyartahaa iyo intii iska daweynaysay waxaan moodaa imaka inay bareefadkiiyo ka tagin wanaagsan yihiin markaad soo eegto haddana mid kale ku jirto isdhexyaac baa ku jira imika cisbitaalka weyn haddaad tusaale ahaan tagto dhakhtarka aad u tagtee ku diray imika ee warqadda kaa qaad shaybaarhka kuu dira ugu soo noqon maysid xilligii aad u imanaysay
ninkalo meeshii fadhiya u imanaysa marna wasiirku weydiinay wuxuu ku jawaabay dhaatay ku jirtaa wixii nid waxa weeye dadkan isbedelaya waa shifti bay galaan qofkuna waxa wanaagsan inuu qofkii warqadda u diray shaybaarka inuu ugu yimaado halkii balkaana wasaaradda waxa la leeyahay hal la saxo oo de qofkii shiftigiisiina ku lagu beego cidii ku dirtay dhakhtarkii ku diray shaybaarka ku dirana meeshii hal laga helo waqtigii aad ugu soo noqonayso taana taas soo jeedinla دبوي يقدر نتابع تاسو كسو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته